ku soo dhawow barnaamijka tartanka adeega bulshada waa tartan ay ku tartamayaan ardayda jaamacadaha dalku inay u qabtaan bulshadooda adeeg aad u weyn bulshada ay u qabanayaan noqonaysaa bulshada ugu baahida badan haddaba tartankan waxaa maalgelinaya bankiga caalamiga ah ee Premier Bank kulanti wacan oo wanaagsan Ramadaan Kariim dhammaan daawadayaasha ku xidhan barnaamijka tartanka adeega bulshada oo maalgelinaya bankiga caalamiga ah Premier Bank isla markaasina isku xilqaameen in fikirkiisa iyo abuurkiisa ay keenaan aqoon-yahan Professor Warig Ibrahim iyo bahda kale barnaamijka kala shaqeynayay ardayda jaamacadda Badar hadda iyo mas'uuliyiinteeda kale iyo sidoo kale bulshada weynta kala duwan ee dhinaca warqadda iyo isku dubaridisay waxaan markaa la jecelahay daawadeen inaan ku soo dhaweeyno barnaamijkii xisaab badnaa ee tartanka adeega bulshada oo ay ku tartamayaan ardayda jaamacadaha kala duwan ee Soomaaliland ka jiray adeegyo kala duwan oo bulshada u fulinayaan barnaamijka toddobaadkan waxa ku kulmi doona ama habeenkan caawa waxa kulmi doona labada jaamacadood ee Addis Ababa Medical College iyo jaamacadda Armas oo labaduba laba jaamacadood oo kamid ah jaamacadaha weyn ee Soomaaliland ka jira labadaas jaamacadood waxa ku tartami doona tartan kamid ah adeega bulshada oo u fulin doonaan bulshada qayb kamid ah runtii u baahan in adeeg loo qabto maxaa uu yahay adeegaasi waxaan toos u gudageli doonaa tartanka labadaasi kooxood dhex mari doona waxaa hadda soo galaya ardaydii ka qayb galaysay tartanka ee ka socotay jaamacadda Addis بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdinaasir Muuse waxaan ka socdaa jaamacadda Addis Ababa Medical University waxaan u tartaminaa qayb galina tartanka adeega bulshada ee u maalgeliyo Premier Bank waxaa iyaguna hadda soo galaya ardaydii ka socotay jaamacadda Armas oo ka qayb galaya tartanka بسم الله magacaygu Cabdullaahi Axmed Maxamed oo ka socda jaamacadda Armas University gaar ahaan kulliyadda arrimaha bulshada waxaan ka qayb galinaa tartanka adeega arrimaha bulshada uu maalgeliyo Premier Bank waxaa iminka soo galaya goobta tartanku ka dhacayo madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada oo tartamayaasha siin doona hawlaha ay qaban doonaan ku soo dhawaada tartanka adeega bulshada oo runtii aad ku tartamaysaan sidii adeeg bulsho aad ugu qaban lahaydeen bulshadiina waxaad ku tartamaysaan dadka taabalaysan ee u baahan runtii adeega bulshada inaad u qabataan waxaad maraysaan saddex wareega koowaad haddii aad ku soo baxdaan wareega labaad u gudbisaan haddii aad ka ku soo baxdaan ka finalka ah ee lagu kala hadhay baad markaa ku soo baxaysaan marka runtii waxaan idin rajaynayaa guul iyo gobonimo halkan baan ku hayaa waxaad ku tartamaysaa maxaad filaysaa kole tartanku mar barcadii barmadow buu leeyahay laakiin rajadaan ilaahay ka filaynaa waxa weeye inaan guulaysano oo aan guusha annagana raacdo taasaan ilaahay ka filaynaa annagoo tala saarayna ilaahay iyo kartidayna insha allah waxaan filaynaa guub ahaan annagoo ka socona jaamacadda Armas guul gobonimo iyo filaynaa halkan waxa ku qoran waxaad ku tartamaysaan gruupka Sabbaland u dhiiba waxa ku tartamayaan qolka saafurta balha eegto marka ha akhrido wax ku qoran waxaan ku tartamaynaa waxa ku qoran warqadda waxaad ku tartamaysaan in hal qof oo caruur ah oo darbajiif ah aad nolosha darbajiifka ka soo saarto oo aad ku darto nolosha caruurta kale ee reer Soomaaliland lacagta aad haysataana waxay ku jirtaa bushqada waxaad haysataa 24 saacadood oo ka bilaabmaya marka hawsha la isku wareejiyo oo ah iminka okay hadda laga bilaabo waxa idin bilaabmaya tartankii muddada haysataana waa 24 saacadood gudahood waxaan rajaynayaa insha Allah guul waxaa tartamayaasha loo sheegay hawsha ay ku tartamayaan hadda waxaanay gudagelayaan sidii ay hawsha u qorshaysan lahaayeen ardaydii ka socotay jaamacadda Addis ayaa wakhtigan wada tashiga ay sameynayaan waxa ay ku go'aamiyeen inay qaataan ama ay la baxaan magaca Daryeele sidoo kale ardaydii ka socotay jaamacadda Armas ayaa wada tashigii ay sameynayeen kadib waxa ay iyaguna qaateen oo ay la baxeen magaca Bulshakaab tartamayaashii jaamacadda Addis ka socday ayaa waxa ay iyagu gudoomiye u doorteen Sakariye oo ah xubin iyaga ka tirsan dhinaca kalena tartamayaashii ka socday jaamacadda Armas ayaa iyaguna gudoomiye u doortay Cusmaan
falanqayn iyo dood kadib tartamayaashu waxay isla qaateen sida ay hawsha u gelayaan waxaanay hadda fuulayaan baabuurta si ay hawsha u bilaabaan. hadda tartamayaashii ka socday jaamacadda Addis ayaa waxa ay raadinayaan ciddii ay hawsha u qaban lahaayeen waxaanay baadigoob ugu jiraan inay qof ku habboon helaan. waxa iyaguna baadigoob ku jira tartamayaashii ka socday jaamacadda Admas oo raadinaya cidda ay rabaan in ay adeegga bulshada u qabtaan. duruuf adag baan ku koray daryeel hooyana ma helin dadaal aabana. tartamayaashii ka socday jaamacadda Addis ayaa helay ciddii ay adeegga bulsho u qaban lahaayeen. dadkana kuma lihi walaal waxaan u hoydaa darbiga baahida dacalkayga. bismillaahi raxmaani raxiim. dadaal dheer ka bacdi waxaanu soo helay labadan wiil yaryar ee daadoodu aadka u yaryar tahay Suhayb yare iyo Mawlid yare oo labaduba aanu ka soo kaxaynay dooxa magaalada Hargeysa iyagoo qaab kala weega yani mid qaab kala lahaa. iminka waxaanu geenaynaa xarunta dawladda u qaabilsan agoomaha Maxamed Mooge baanu iminka ku soconnaa taasaanu ku wareejin doonaa oo nagala wareegi doontaa. sidoo kalena tartamayaasha ka socda jaamacadda Admas waxaan ka socdaa jaamacadda Admas gaar ahaan kulliyadda social work maanta waxaan wadnay case ah inaan ilmo child street ah aanu ka soo saarno xaaladda iyo duruufta uu ku sugan yahay isla mar ahaantaana aanu bedelo nolol fiican oo nolosha dhigiisa kale carruurta ay ku nool yihiin. marka maanta hawl badan oo qabanay kadib waxaan ku soo guuleysanay iminka inaan soo helo ilmahan oo aan ka soo helnay dooxa isagoo oo markaasi aan wax daryeel haysan hooy aan haysan wuxuu cuna aan haysan. markaan ilmihii aan la hadalay aan wareysanay aan darsnay xaaladiisa ilmaha waxaan ogaanay ilmahan inuu yahay qofka rasmiga ah ee u baahan maanta inuu fursad helo fursad waxbarasho helo fursad helo hooy u dego. markana tartamayaasha ka socda jaamacadda Admas ayaa bilaabay inay iyaguna godagalaan hawshooda. ayaa dawrsiga ay baray tarxuma badan baan qabaa dubkay iga waxaa ku sidan dabku waayuhu isuray handoora mar baan lahaa damiir togan baan lahaa. geesta kalena kooxdii ka socotay jaamacadda Addis ayaa waxaa iyaguna xarunta darbi jiifka ku wareejiyeen labadii carruurta ahaa ee ay soo heleen. duliga nolosheen ku jiro diftay idin waxaan arkaa da'day idin markay tagaan dugsiga iyagoo qurxoon ayaa. markana kooxdii ka socotay jaamacadda Admas ayaa ilmihii yaraa ee ay soo heleen waxa ay ku wareejiyeen hooyadii. bismillaah ilaahay mahad alxamdulillaah magacaygu Cabdilaahi Axmed Maxamed ilaahay baa mahad iskale hawshii aan saaka bilownay iminka gabagabadeedii halkii u dambeysay ayaanu taaganahay. saaka waxaanu bilownay hawshan 9:00 aroornimo. Cabdirashiid waxaanu u keenay xaafadoodii oo ka maqnaa muddo hooyadii ayaan ku soo celinay muna farxad aad u weyn bay ahayd inaan iyo hooyadeeda muddo kala maqnaa inaan isku soo celino annagana sidoo kale farxad bay noo ahayd. intaa waxa dheereed Cabdirashiid qof muxuu ahaa darbiga seexanayay buu ahaa oo baahi iyo diifi ka muuqatay hawshiisii maxay ahayd iyo dharkii iyo arritirkiisiina waanu soo dhamaynay inaanu Suhayb iyo Mawlid yare ku wareejino xarunta dhaqan celinta Maxamed Mooge ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoysku ay gacanta ku hayso. Suhayb yare iyo Mawlid oo aanu ka soo kaxaynay dooxa magaalada Hargeysa kuwaasoo ahaa darbi jiif ku dhex noolaa dooxa magaalada Hargeysa. waxaanu garanay inaanu xarunta dhaqanka keeno sidoo kale inaanu waalidkood la xiriirsiino. Suhayb iyo Mawlid inaanu xarunta dhaqanka keeno iminka waxaan ku wareejinaynaa maamulka xarunta dhaqanka iyo
xarunta dhaqan celinta degmada maxamed mooge marwa muna isagoo muddo iga maqan maadaama isagii dhay ii keeneen oo alaabtan ku shaqaysan karayay iyo dee baahidii haysayba ay iga bixiyeen oo ardadana anugu maxaad naqayaan horta ilaahay baa mahadda iskale kollayna carruurtan aynu ku magacowno darbijiifku qof kastoo somalilan ku nool waajibaad baa ka saaran waanan uga mahad celinayaa dhalinyartaa isu soo xilqaantay ee labada carruura keentay insha allah ee suhayb iyo mawlid ayaan qura deeq ma helin farxaddan waan kala didnaa waxaan gashadaa dirays maryaha duugeed qubtan duxiyo iidan macuno dugaag waxaan qaybsanaa hambada aadaadisan barbadaacunu go'ay markay waayeen dabiib ubadka dirbijiifka abaabul ha loo sameeyo adduunka nafbay ku leeyihiine warxama derbiga aqalbay ku leeyihiine warxama ogaada ammaanadooda warxama carruurta gayiga baahan adduunku ha sootayaan naf baan ahay dheelido dhantaali iyo ciil qabto intuu dhaawacay wakhtigu dharbaaxada waayihiyo duruufuhu dhalan rogoon dhallaan aan waalidiyo walaalla dhashiyo lahayn dhabtii ehel baan hoo wadada dhinaceega iyo ku koray derbiyada intaa waan dhiirannaa dhambaalaannu soo dirnaa haddana lama dhaadayee kuwaan u dhawaaqayow miyaydaan dhaga lahayn intaan isku dhiignihiyo dhammaan soomaaliyey dhegaysta warkayga oo arkoo dhaayaha u fura dhibaataday ku jiraan haddaad dhisateen guryo sariir dhigateen qurxoon dar iyo buso saarateen annagu dheel soodi iyo dhaxanta waxba kama hiwano haddaad dheeniga cuntada markaad dharagtaan qobtaan weliba dheeldheelaysaan annagu dheef maanu helin dandhamiya oon ma liqin markana aynu kala baranno xubnaha guddiga tartanka adeega bulshada mubaarig ibraahim aar waa soo saaraha iyo maamulaha barnaamijka tartanka adeega bulshada mubaarig waxa uu guddoomiye ku-xigeen hore uga ahaa jaamacadda hargeysa iminkana waa guddoomiyaha jaamacadda beder waa kuma ismaaciil aadan meecaad ismaaciil waxa uu waxbarashada heerka labaad ee maasterta ka dhammaystay jaamacad ku taalla magaalada london ismaaciil waxa uu muddo dheer wadamo kala duwan oo yurub iyo waqooyiga ameerika ah ka soo bixiyey tababaro la xidhiidha horumarinta bulshada ismaaciil waa aasaasaha xarunta shaqada boorame ee loo yaqaano boorame job center axmed cali xasan waa injineer master of science development studies waxa uu ka qaatay jaamacadda hargeysa waa wasiirkii hore ee cadaaladda somalilan waxaa kale oo hore u soo noqday wasiirka caafimaadka waa tuma nuure maxamuud cumar waa gabadh lugaha naafa ka ah waxaanay muddo dheer ka soo shaqaynaysay arrimaha bulshada iyadoo guddoomiye ka noqotay ururka naafada somalilan SNDF waa beeraley ganacsigana ku jirta ugu dambeynna waa kuma cabdirashiid yuusuf gaaxnoog waxa uu maaster culumta waxbarashada ka qaatay jaamacad ku taalla waddanka Uganda sidoo kalena waxa uu maasterta labaad ka qaatay jaamacad ku taalla waddanka Suudaan waxaanu muddo dheer ka tirsanaa maamulka sare ee jaamacadda Hargeysa sidoo kalena waxa uu madax ka soo noqday hay'adda African Relief iminka waxa bilaabmay inay tartamayaashu ay u soo bandhigaan guddiga garsoorka barnaamijka waxyaabihii ay qabteen waxaana hadda soo gelaya tartamayaasha ka socda jaamacadda Addis بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Sakariya Cismaan Xirsi oo ka socda jaamacadda Al-Sawa Medical University waxaan ku tartamaynaa inaan hal qof oo darbajiif aan ka saarno marxaladda darbajiifnimo anagoo nolosha caruurta kale reer Soomaaliland aan ku darayno marka koobaad saacadan meesha ka dhaqaaqnay waxa 9:00 subaxnimo oo hawsheeda aan bilownay ujeedka nolol diro wuxuu inaan hal qof oo darbajiif oo nolosha darbajiifnimo ka saarno laakiin waxaanu sameynay mid ka fiican oo waxaanu laba caruura oo darbajiifa ayaanu ka saarnay noloshii
halkaan markaan marinay waanu isqaybinay gruub waxay qabteen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada si sharciyadii u sameeyaan caruurtan lagu geyn lahaa xarunta darbajiifka mid ka mid ah xarumaha darbajiifka qaybna waxay qabteen inay ilmihii yaraa doonaan haddaan ku horeeyo qolada tagtay wasaaradda shaqada iyo arrimaha sharciyadda samaysay way nagu adkaatay sharciyaddu waqtigo goor dambe ahaa oo 12 ku beegnaa shaqaalaha dowladda waqtiga gabagabo ku dhowday shaqadoodii sharciga oo adag oo laftigo loogu talagalay marka hore maxkamad la soo mariyo xiraan la soo mariyo dandana systemka loogu soo daro lagu geliyo xarunta systemkana lagala baxo hawshaas soo adkeyd oo dowladda waqtiga aan shaqaynayn way nagu adkaatay laakiin waanu ku guuleysanay inaanu helo warqadii aan ku xareynay labada caruura ee darbajiifka ee da'doodu tahay 10 jir ilaa 12 jir magacoodana marka dhacay Suhayb iyo Mawlid warqadii markaan soo helay groupkii kale waxay yimaadeen waxay ka bilaabeen marka hore suuqa magaalada Hargeysa marka hore waxaan ka bilownay waxaanu war ku helay in wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay haysato list dadka ka baxsan xarumaha oo darbajiifka suuqa oo qaarkood dad iska hayaan oo in la caawiyo loogu talagalay ay hayaan kuwaasaan weydiinay marka waxaan ugu dhayn kuwa waxay ka baahi badan kuwa kale waxaan qoladii kale waxay bilaaween in suuqa marka hore tagaan oo suuqa ka soo baadhaan suuqii markay ka soo waayeen ama suuqii daadii iyo dekartariyadan sidii ay naxushay aan ka soo weynay waxaanu tagnay dooxa magaalada Hargeysa ayaan kula kulanay yaani darbajiif fara badan oo daadoodu yara weyn tahay sidoo kale darbajiifka fara badan oo kula kulanay waxaanu ka helay ilmo yar marka hore waxaan wiil la yiraahdo Suhayb oo hooyadii degan tahay cakaara aabihi yahay agoon oo aabihi dhintay sidoo kale muddo 5 sano ku jiray darbajiifnimada ku jiray aduu marka labada caruur helay waxaan bilownay caruurtii inaanu iibino inaan cunto siino dandatan inaan meeristoodii waxoodii bilowno qaabkii aan ka bedelo inaanu geeyno dharkii u iibino ay u baahnaayeen inaanu iibino shopping oo aanu geeyno xarumihii shoppingka sida dhaashiyadoodii iyo waxoodii aanu bilowno iyo inaanu dhakhtar geeyno maadaama anaga ka fakarayna caruurta meesha ku jirta caafimaadkooda laftarkooda hadday hepatitis B qabaan oo Jones cad qabaan hadday AIDS qabaan inaan waxaas oo dhan ka baarno aan xaruntii geeyno marka waxaan ka baarnay xanuun kasta ay qabaan dawooyinkoodana waanu qornay jawaabtina waanu soo qaadnay sidoo kale waxaan u balan qaadnay caruurta inaan monitoring sameynayno caafimaadkoodana xarunta MRC Immigration Response Center ay la wareegayso wax kastoo dawooyina ama caafimaad caruurta ku jirta ay u baahdaan marka intaas aan u qabanay aad iyo aad bay mahadsanyihiin dhamaantiin mahadsantihiin haddaan ku bilaabo qaybta su'aalaha waxaa la idin diray hal qof waxaanad soo samayseen 2 qof xagga kharashka markaad eegtaan lacagta la idin dhiibay iyo calaa qof inta kaga baxday sideed u xisaabin kartaan waa mahadsantihiin dhammaantiin qof inta lacagta naloo dhiibay waxay lacag $400 sidaan qarash aan ku samaynana waxay ahayd maadaama marka hore naloo diray hal qof laakiin baahida anigu aynu garanay inaan qof kale ku darno si nolosha aan uga saarno 2 ilmood oo nolol xun ku jira ama darjibaysnimo ku jiray ay nolol wax ku bartaan qofkii inta kaga baxday lacagta uneeg qofkiiba waxaa nooga baxday 100 calaa qof intaasoo ku baxday 235 ibar qofkii waxa ku baxay $100 labadooda guud waxa naga baxay $265 baa naga baxay waxa noo saaray $135 waxaan ugu talagalay inaan iyaga laftirkooda monitoring loogu sameeyo inaan mar qura dhaano 10 isku joogo iibiya waxa ka qurux badan xaaladaha mar kasta u soo baxaya in caruurta lagula daba lacagtii aad u dhibtay xagga la dhigay lacagtii lacagta anaga oo hayna laakiin waxaan kula balanay inaan ku wareejino inanta muna la yiraahdo haysta xarunta darbajiifta Maxamed Mooga haysta ilaa hadda idinka hayo lacagta ilaa hadda anaga hayna laakiin inantaas aan kula balanay inaan kula wareejino lacagta oo ay u siiso waxyaabaha aasaasiga ah u baahan tahay bismillaahir rahmaan aan su'aasha labaad raacsado marka hore waxaad carabka ku dhufateen in ay sharciyeyntii lagu geyn lahaa xaruntu ay idinku adkaatay markii dambena waxaad sheegteen inaad hasheen oo dhammaystirteen ood geyseen 12 ahayd oo laga rabo xafiisyadii dawladda haddana same day aad geyseen see ku suurta gashay waxay ku suurta gashay marka hore agaasimaha la kulanay agaasimo systemkaas noo sheegay ilaa maamulka xarun barnaamijkooda systemkaas uu sheegay laakiin waxaanu sameynay dad Soomaalidu kale taxtaxma weydo taxtaxiyada raganimadayadu maanu sameynay waxay noo ogolaadeen in iminka caruurtii nala ka sii qabto as a temporary sharcigana berito la dhameysano marka waa sharciga ma dhameysay marka sharciga waan dhameynaa oo waanu sidana sharcigii caruurta juwanadayadii waxayguna waanu sidana sharciga caruurta meesha ku joogaan waanu dhameynay oo wayna xaruntu wayna siisay marka temporary bay maalintii nooga sii qabteen subaxii dambe aanu sharcigii caruurta dhameystirnay lacagta aad tirahdeen maamulkan ku wareejinayna ayaa damaanad qaadi kara in meeshii lagu talagalay lagu isticmaali doono juwanada iyo sidoo kale muuqaaladan soo duubi doono insha Allah okay marka anigu hal yar raacsadan boobo saaxiibaday labada caruur midna waa 10 jir midna waa 12 jir marka labadaba ma agoomaa labada caruur labaduba waa agoomo
laakiin midi Soomaa ma degana Hargeysa ma degana hooyadii baa buu hood laga soo qaaday halkan buu yimi hooyadii markaa halkan yimi buu ayay hooyadii ka tagtay saas 3 sano darbijiif ku jiray ka 10 jirka ka kalena hooyadii waanu la xiriirnaa xiriir fara badan baanu sameynay 5 sano soo darbijiifnimada ku jiray marka labada caruurba waxay agoomay ahaayeen aan haysan midna labadu agoomay ahaayeen waa nidaam ahaan iminka lacagtan aad haysaan nidaam ahaan haddaydan lacagtii wax loogu talagalay oo aydan kharash garayn soo inaad ku soo celisaan maaha meeshii laydinka may haddina la ka codsado dabcan waan soo celinaynaa haddii laydinka codsado maaha sidoo kale inantu imika lacagtii qacantaan ku haynaaba markaa baahiyahoodii markay u baahnay markaan u dhammaystirnay waxaan aragnay ciyaalka maadaama waalid aanu ka dambeeynin u baahan karaan waxyaabo kaleeto inaan lacagtan aan u hayno weliba haddii wax kale ay u baahdeen inaan jeebkayga anagu aanu kaga darno waxa kaloo qofka ibnaadamka wuxuu u baahan yahay hooy iyo hurdo iyo caafimaadkoodan damaanad qaadna inta ay ku jiraan inay galayaan bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsantihiin markay aa xulanayseen labadan caruura sidaan ognahay hablana way ku jiraan maxay hayday darbijiifka waliba hablaha sii nugul markaa mar haddaa go'aansateen inaa laba ka dhigtaan maxaa isugu dheeli tiri weydeen inan iyo inan uga dhigi weyde horta barkii habla waan raadinayba waan weynay marka meeshaan tagnayna ciyaalkii dhan aan wareysanay iskamaanaan qaadan labada ciyaala markaan wareysanay waxaan aragnay labadan ciyaala ay xoog u doonayeen meesha la geeyo midda kaleeto kan kale anagoo markii doonay mar quraata qaadanayo kan kale wuxuu naga dalbaday inaan isagana ku darno codsigoodii iyo maadaama ay si badan ay xoog ay u doonayeen ciyaalkan ay doonayeen hadhow tala weli wax noqdaan oo ayna rabin darbijiifnimadan ay ku sii jireen saansa labada ciyaal oo qadqoorna markaan aragnay xoog ugu baahan yihiin sidoo kale waanu raadinay laba dumar waanu raadinay in badan baanu raadinay laakiin gabadh weyn mooyee ama gabadh 16 jirka weyn mooyee waanu weynay dumar dhinaca kalena hadda waxaa soo gelaya tartamayaasha ka socda jaamacadda Admas oo soo bandhigaya adeega bulsho ee ay qabteen waxaad sheegtaan magaciina noo sheega magacad ya بسم الله السلام عليكم magacaygu waa Seynim Cabdiqaadir Xasan waxaan ka socdaa jaamacadda Admas University magaca groupkeyguna waxa weeye bulshakaab waxaan ka qayb galaynay tartankii adeegayaasha bulshada case-ka aan ku tartamayna wuxuu ahaa case child street ah waxaan beegsanay goobaha laga heli karo sida dooxyada iyo mise jaamaca area ay isugu yimaadaan waxaan sameynay qiimeyn ay sameeyaan social workersku marka ay caseska galayaan oo ah case management processka sida in consent form la sameeyo ogolaasho in assessment form waxyaabaha la sameeyo foomamka markaan soo diyaarsanay qiimeyn baan ku sameynay ciyaalkii yaraa oo dhan intaan u tagnay intii gaari karaynay waxay noo sheegeen inay xarunta aanay diyaar u ahayn oo aan hadda aanay tagi karin xarumaha annaguna waxaan doonaynaa kiis sustainable noqdo oo waaro oo guuleysta mana rabin caruurta inaan ku qancino kaliya kaalaya taga maadaama iyagu aanay rabin oo qaarkoodba noo sheegeen inay xaruntaba ka soo baxsadeen kadib waxay noqotay inaan dhinac kale uga wareegno raadino ilmo waalidkii maanta ay nool yihiin haddana ka doorbiday nolosha darbijiifnimada inaan noloshaasi ka soo saarno waalidkiina aan ku celino xaaladaha ku kalifana aan ogaano kadib waxaan sameynay waxaan anagoo kala tashanayna afhayeenka darbijiifka oo aanu la waanu raadinay waxaanu soo helnay case ilmo yar oo waalidkii oo magaalada joogay isagii darbijiif noqday ilmihii waanu ka xaynay waxaanu geynay gurigoodii baan tagnay qiimeyn baan ku sameynay waxaanu ogaanay inay duruuf dhaqaale kaliftay oo hooyadu ka dalbatay ilmaha inay baalash u dhiibto oo quudna daruurigii isagu soo saaro kadib qiimeyn markaan arrintaasi ku sameynay waxaan go'aansanay markaan horta qiimeyn ku sameynay arrintaasi hooyadana dareenkeedii aan weydiinay tiri duruuf dhaqaale ay guub kaliftay laakiin ilmahayga waan la jecelay inaan waxbarasho helo inaan dhaqaale helo aniguna ma awoodo inaan soo shaqeeyo ubad yarar baan haysta kamana tagi karayo waxaanu fahanay kowska problemku inuu yahay dhaqaale daro kadib waxaanu ka fikirnay in hooyada il dhaqaale u abuuri karno anagoo self determination sameynay kala tashanay hooyada shaqooyinkay qaban karto maadaama ay ubad yar haysato oo aanay awoodi karin dibadda ka soo shaqeyso soo jeedinay fara badan oo soo jeedinay oo ka mid ahaa inay ama haafta noqoto shiid iyo cadar iyo waxa uu keeno iibiso ama se ay noqoto ama ay keento wax gurigeed wax ku iibiso waxay noo sheegtay in gurigeed wax ku iibin karayso cunto sameyn karto agabkii waanu soo iibinay raashinkiina waanu soo iibinay
sidoo kale counseling baan u samaynay hooyadii oo haddii ilmaha ay dibadda isaga dirto cawaaqibta ka dhalan karta ee ilmaheeda mustaqbalkeeda saameynaya ilmihiina laftirkiisa counseling baan u samaynay kadib kiiskii waxaan kusoo gebagabeynay inaan hooyadii il shaqo u abuurnay oo ay ku ganacsato quuta daruurigiina kusoo saarato ilmihii ballanqaad fiican aan u samayno oo aan u sheegno inuu beritoona mas-uul noqon karayo hadduu maanta wax barto waxbarashadiisana annagu aan kafaalo qaadanayno maadaama waxbarashadii xidhan tahay aanu marka dugsiyada la furo aanu geyn doono balcadda iyo bugaagtana aanu qaabili doono raashinkii ubadkiina waan usoo iibinay reerkii gogashii iyo waxyaaba isticmaaliyan waan usoo iibinay baahidii kasta aan odhan karnay way jirtay waanu mid garaynay waad mahadsantihiin okay anigu aan su-aasha ku bilaabo waad mahadsantihiin ilmaha aad ka kaxayseen meelaha darbijiifka ejkiisu intee buu ahaa wuxuu ahaa bismillah ilmahaas wuxuu ahaa 10 jir sababta aanu u kaxaynay bes sababku ma weydiinay 10 jir buu ahaa marka ma wax okay ilmaha markii aydun hooyadii baa toos ugu geyseen hooyadiina markaa waxaad u abuurteen shaqo abuur baad u samayseen mayna ka fiicnayn inaad geysaan xarun waayo xarunta waxaa ka jira nidaam waxaa ka jira system waa la ilaalinaya ilmihii ma ogtahay laakiin beri ka maalin ma laga yaabo inuu hooyadii ka soo baxsado oo markii horeba dayna uu ka baxsaday haddana uu ka soo baxsado haddana dib ugu noqdo halkii waan maxay qodobka waa qodob aad muhiim weeyaan waan discuss garaynay waanu ka fiirsanay sababta ugu weyneen u dooranay inaan ilmaha yar hooyadii ku celino annagoo ka doorbidaynaa inaanu geyno maxay xarunta lagu keergareeyo ciyaalka yar ama rehabilitationka loogu sameeyo waxay ahayd ilmaha yar wuxuu ku jiray marxalad lagu kantarooli karayo haddii la tuso jacayl waalid maxay ahayday baahiyaha guriga uun maxay ahayday la daboolo maxay ahayday uu helo waalid ka agdhow iyo hoy uga wanaagsan ayaan u aragnay waalidkii inay tahay maxay ahayday marka la barbar dhigo xarunta maxay ahayday rehabilitation lagu sameynayo annagoo aragnay maxay ahayday dhalinyar badan oo ka soo baxsaday maxay ahayday xarunta markaanu waraysanay waxaa nagala qurux badnaatay noogana muhiimsanaatay inkastoo uu ka adkaa haddana waxaanu door bidnay ilmo yar oo 10 jira maadaama uu ku jiro marxalad la qaban karayo ilmaha yar aanu ku sii maxay ahayday talax tegin balwadihii iyo sidii xabagtii oo kale aanu weli maxay ahayday qof adhagtira aanu noqon laakiin uu muddo kooban ku dhex jiray waxaanu u aragnay in waqtigii ugu habboonada laga qaban karay soo gaabi laakiin waxa kaloon raacsan lahaa waxaad tilmaamteen idinku inaydun ka sii warhayn doontaan xataa waqtiga soo socda balcadiisa iyo waxaa idinku aad sii joogtayn lahaydeen idinka awooddiina intaa ma gaadhsan tahay waayo waxaa laydin dhiba $400 $400 laydin dhiibay imaka miyaad ku dhammaysteen ma meel ba wax u dhigteen mise idinkaa iska xil saaraya wixii imaka ka dambeeyo balcadiisa iyo joogtayntiisa su-aal fiican wey aad baad mahadsan tahay kharashaadkiina loogu talagalay horta waanu ku dhammaynay baahi badan oo ka jiray guriga markaanu aragnay mushkiladdu may ahayn inanka yaroo keliya sababta maxay ahayday haddii nimka sabab aan nagu kalifaysay oo lacag noo soo hadhaysay aan u soo reebna may jirin waayo waxaa u baahnaa xaafadda marka laga yimaado inanka baahi badan oo jirtay awgeed maxay ahayday kharashaadkii inaanu kharashaad dheeraada anagu maxay ahayday naloo ka baahday mooyaane waxaan ka soo reebnay ma jirin maxay ahayday ballanqaadka aan samaynay waa mid annaga naftayada ama annaguba arday baan nahay laakiin waxaan ugu talagalay meesha doonto waxaan ugu qaadatee inaanu keenno bismillaahi raxmaan raxiim waxaad sheegteen in ay hooyadu markii hore inanka yar baalashka iyadu u dhiibtay oy suuqa gelisay kadibna maxay ahayday ilmaheedii uu sidaa ku noqday derbijiif iyo qof aanay ka warhaynin oo aanay mas-uul ka ahayn carruurtii kalena ay haysato oo ay leedahay kuwanaan danaynaya halkaa miyaanay idiin muuqanin in ay maxay ahayday maadaama oo markaa horeba mas-uuliyad darra ay jirtay ay carruurteedii qaybna soo xaraysatay hoosta gashatay midna aanay ka warhaynin in maxay ahayday maanta marka suuqa looga soo qabtay lacagna lagu siiyey berrina inay nooc ganacsiya ka dhigto ay haddana dib u celiso maama waad mahadsantahay waa su-aal fiican markaan assessmentka ku jirnay taasi waanu ka fikirnay laakiin hooyadu waxay ku sababaysay ilmaheeda inay ku tiri gelinna hooyo soo shaqee gelinka dambana madrasadda ayaan anaa ku daray bay tiri oo madrasad buu ii dhiganayay mustaqbalkiisana waxay ahayd hooyo ay ka go'antay inuu badkeeda ilaaliso sababta ka reebtana waxay ahayd may awoodi karin inay dibadda ka shaqayso ubadkii kale aan cid ay kaga tagta aanay haynin saas bay u dirtay markaa may lahayn guud ahaanba ku maqno dibadda may lahayn wax ka go'nayd inay horumar gaarsiiso ilmaheeda waay su-aashaan weydiinaya waxa weeye haddeer waxaad noo sheegteen hal ilmo oo cidi idiin keentay unaad iska qaadateen
ma intaad tiro caruura sabos aad eegteen oo aad xaaladahooda kala qiimayseen mise ilmihii laydin keenay unbaad iska qaadateen ilan waxa weeye maaha qof kugu soo horeeya oo sabos laga yaababa inaad garanaysid qofkaasi ama ku garanayaba inaad number dad caruur ah oo xaaladdaa ku sugan oo iminka waxaad noo sheegteen masjid meel ay ku sugan yihiin masjid jaamaca iyo dooxa saldhiga dhexana habeenkii bay u hoydaan oo amni bidaan muxuu ahaa caruurtaas dee inaad number kala qof inaad iska qaadataan sidee ku idinku waxaan ku dooranay markii horena waxaan samaynay qiimayn ubadka waan wareysanay waxaan ku horeynay masjid jaamaca dad badanna waan la sheekaysanay waxaan aragnay ubadkii inay iyagu yihiin u badan yihiin dad dibaddan bartay oo ay kala fiican tahay inay hoy helaan maadaama caqligoodu aanu isku filnayn inay dibaddan joogaan ay dibadda uga fiican tahay bay dareensan yihiin kadib xarumihiin waxay noo sheegeen in iyagu ka soo noqdaan waxaanu siriintaad kiis maanta aad dhamayseen haddana uu dib u soo noqon lahaa oo ay carruurtani xaruntii uga soo baxsan lahaayeen sababa ay sheegayeen inay weli taagan tahay waxaad doontaan mid duruufi ku kaliftay inuu dibadda tago duruuftana aad miidgaraysaan waalidkoodna qof walba gurigiisa ayuu ku si sharaf loogu noolaan karaaye aad u geysaan sidaasi baan ugu dooranay qaar kale oo sida waxa aad sheegaysid leh sifooyinka aad sheegaysid leh ayaa jiri kara de waanu raadinay waanu weynay ilmahaasaanu helnay way badnaayeen kuwa xaruntaanu geyn karno laakiin ilmahaasaanu helnay kiiskana inta ugu badan waxaan ku qaadanay qiimayntii waayahay waalidka qoyskaasi meel uu dakhli ganacsi ka soo galo dakhli inka meel uu ka soo galaayo miyay jirtay markaad eegaysaan xaaladda dhaqaale ku sugan yahay qoysku markaan qiimeynay xaaladda muu haysan meel kaloo dakhligu ka soo galo waayo aabbihii xaafaddu wuu iskaga tegayba xaafadda oo uu dayacay ilmaha kale maxay siinaysay xaggee wax ka soo galayeen ilmaha kale jaarka ayaa ka warhayey oo jaarka markaan weydiinay ayaa muxuu haayay xaaladoodu kala socon jiray maamadaas miyay hore wax ganacsiga u samaysay guriga wax ma ugu samayn jirtay wax ma gadi jirtay inuun wax ma iibin jirtay maya ma iibin jirin marka hadda ugu horeysa inay ganacsi bilowda haa waanan weydiinay xaaladda waan u soo bandhignay inaan ganacsi u abuurno iyadoo jeceshahay siday seenaba sheegtay shuudad inaan u iibinno oo iyadu ay tidhi maadaama haysta ciyaal yaryar oo aanay ka tegi karin inaan xaalad agteeda aan u sameyno bismillaahi raxmaan raxiim laba su'aalood oo isku mid ah sidii horeba ayaanu idin weydiinaynaa marka qolada waxaan ku horreysiinayaa daryeele haddii aad guulaysataan maxaad isleedihiin in yar idhegays haddaad guulaysataan maxaad isleedihiin waad ku guulaysateen haddiise miyan kala dambaysiya mise haddii aad macnihii laydinka guulaystana maxaa laydinkaga guulaystay baa isleedihiinoo halkeebay talow ay ka jirtaa goldalo weaknessa haddaan guusha ku horeeyo 3 qodob kow carruurtaanu xaraynay oo laba darba jiifa waxaan kaloo guursan karnaa laba ilmihii inaanan gurigiisa ku celin gurigiisa uu garanay uu ka soo noqonaya beriya ilaa ilmihi yara waxbarashadii loo bilaabayo aan waxbarashadii daba socono xarun wax lagu buro wax ku cuno ku noolaadaanu geynay laba qodobka saddexaad inaan ilmihii yaraa anagoo daan dhaano xasan damaanad qaadayna caafimaadkiisa anagoo shakhsiyaad baanuna laakiin institution dhisan oo qaxoontiga u dhisan inaanu ilmihii yaraa ku wareejino nidhi ilmaha caafimaadkiisa wixii kala yimaada dawooyinkiisa wixiisa oo dhan inaad ilmaha yar kafaalad qaadaan saddex qodob aan isleeyahay waad ku guulaysan kartaan dee guuldaradu koley hadiyad ma noqoto guushu isma lihiin weakness baa jira dadaalkaanu sameynay kabacdi ilaa maxkamada leh isma lihiin aan weakness leenahay ma jirto isma lihiin maxaad laakiin isleedihiin hadday dhacdo in laydinka guulaysto waxaad isleedihin waa laydinka guulaysan karaa waan aragteen tiimka kale lacagta aanu soo reebnay baan ugu malaynayaa inkastoo lacagtaasna aanan u reebin dee inaan soo celino oon u reebnay ciyaalka si ay dee wax dambe ay ugu noqoto oo dib ugu monitor garayno oonan intaasna aanan ku joojin annagu xitaa wixii karaanka ayagaan ugu darno gruubka labaad haddii aad maxay ahayday su-aasha koowaad aan idin weydiiyo haddii aad guulaysataan maxaad isleedihiin waad ku guulaysateen haddiise laydinka guulaysto maxaa laydinkaga guulaystay ayaad isleedihiin waad mahadsantay maamo bismillah haddii aan ku horeeyo guusha ama qodobada aan ku guulaysan karayno horta waa midda koowaade kayskan aanu gacanta ku haynay family reunificationka aanu samaynay kaysaska ugu adag ee la qabto weeyaan
kayskaas oo naloo cayimay waqtiga aan ku qabanno 24 saacadood ahayd kaysaskaas sida caadiga marka maxay ahayd la raacayo sida saxda ee procedure-ka saxda saacadaha sida lagu soo koobo way adag tahay waqti badan buu u baahan yahay in la qaato waa qodob oo kayskaas aad u adkaa waa midda labaad kaysaska noocaas in la helo oo yar way adag tahay in la helo maxay ahayd helitaankiisina dhib badan iyo waqti badan ayaa nagaga qaatay oo maalintii 6 iyo barkii aroornimo kabi aan soo xidhanay annaguna guryahay ku noqon saan u raadin 10kii iyo maxay ahayd iyo barkii baan guryahay ku noqon kabi bixin si aan kayska u dhamaystiro iyadoo naga go'oneed inaan maxay ahayd kayska aan ka seexan waa qodob qaybta labaad goodo daliish weakness daliisha horta labaduba maxay ahayd ismalii horta haddaan guuldareysano ismalii haddaan maxay ahayd horta labadaydu waa wada guuleysanaan aanu aaminsanay waa midda koowaadoo maxay ahayd markaanu eegno ummadda ama dhalinyarta aanu halkii ku jiraan ka soo qaadnay nolol cusub u abuurnay iyo dadaalkaa ballaadhan samaynay waxaan odhan karayaa laba gooraba dad guuleystay baan anagu isku aragnaa marka maxay ahayday way jiraan waxyaabaha jiraan is odhan karano dhaliil baad ku yara leedihiin waqtigii soo gudbintii reportkii oo kale oo nagu yara noqday arjan oo nagu maxay ahayday nagu yara waqtigii oo nala yara dhaafay intaas baan is odhan karayaa haddii ay jiraan wax dhaliila kolley bini'aadanka dhaliil lagama waayey hadda guddiga ayaa waxay ku dhawaaqaysaa ciddii tartanka ka hadhay ee laga badiyey bal aynu eegno bismillaahi raxmaan raxiim horta sidaad u sheegteen labadiina qolaba waad guulaysateen sababtoo ah waxaan hawshan la qabanayay ayaa waxay tahay hawl maxay hayday samafal ah waqti badanna la geliyey laakiin had iyo jeer laba qof laba group ama laba qof mid uun bay haddana ay raacdaa waayo labadoodaba suurtagal maaha markaa waxaa caawa laga guulaystay bulshakaab isuna hambalyeeye waa tahay waxaa la soo gaadhay daawadeel waa gunaanadkii barnaamijkeena tartanka adeega bulshada oo gabagabo taagan waxaan aad iyo aad u hambalyeynaa dadaalka labada kooxood ee ka socday jaamacadda Addis Ababa Medical College iyo Armas ay geliyeen in bulshada ay u adeegaan iyo sidii quruxda badneed ee hawshaasi soo fuliyeen waxa kale oo aad u hambalyeynaa guddigii iyaguna ka garnaqay labadaasi jaamacadood waxaan ugu dambeyntii hambalyeynaa jaamacadda Addis Ababa Medical College oo ku guuleystay ma noqotay guuleystaha barnaamijkan oo aan aad iyo aad u hambalyeynayna waxaan leenahay dhammaantiinba habeenku haydii wacnaado kulanti wacan oo wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh si aad joogto uga hesho wararka iyo barnaamijyada telefishinka codka bariga Afrika fadlan iska diiwaangeli channelkayaga YouTube-ka ama dooro bogagga baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter-ka